waxaa saacadihii u dambeeyay baraha bulshada qabsaday hadalhaynta meherka ugu qaalisanaa ee ka dhaca guud ahaan bagayga Soomaalida. meherkan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. haddaba waa kuma wiilkan xaaskiisa cusub uga dhigay 1 milyan oo dollar dahab u dhigma. waase tuma gabadhan hadalhaynta weyn ka dhex dhalisay dhinaca baraha bulshada ee meherkeedu gaadhay 1 milyan oo dollar. barnaamijka ayaynu ku daaqaadaynaa. ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u guda gelin hadda channelkan ku cusub tahay subscribe sa asxaabtaada la wadaag soo dhawaada barnaamijka wajalaayda waxyeeliyo ilaha adagayste marlayban danteediyo ilayma saduuxine waa meherkii ugu qaalisanaa guud ahaanba ee ka dhacay gayiga Soomaalida. waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. 1 milyan oo dollar in ka badan ayaa lagu meheriyay gabadhani. gabadha ayaa waxaa lagu magacaabaa Hodon Yusuf Umar ayaa waxaa lagu meheriyay 20 kilogram oo dahaba. 20 kilogram oo dahaba oo halkii kiilo uu yahay 550 dollar oo dollarka Mareykanka ayaa u dhigantay 1 milyan iyo 100 kun oo dollar. waa in ka badan 1 milyan oo dollar. meherkani ayaa meherkii ugu qaalisanaa ee ka dhaca guud ahaan bagayga Soomaalida taariikhda inta la xasuusan yahay. meherkeeda gabadhan waxaa ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay weheliyaan siyaasiyiin caanka ah guud ahaan bagayga Soomaalida. dadka qaar ayaa isweydiinaya sababta meherkani uu qaaliga intaasi leegu noqday, laakiin dadka meesha jooga ayaa waxay isweydiinayaan meherka intaas leeg waxa ka khaldan yihiin ama wadaadku inuu si khalada uu u yiri 20 kiilo dahaba. waa sida dhinaca baraha bulshada loogu falaqaynayay. meherkani waa meherkii ugu horeeyay ee ka dhacay gayga Soomaalida taariikhda inta la xasuusan yahay. 20 kiilo oo gram oo dahab oo halkii kiilo uu yahay 550 dollar oo u dhigantay 1 milyan iyo 100 kun oo dollarka Mareykanka. waan ogahay inaad aaminsanayn, laakiin isku day inaad aaminto. waa 1 milyan oo dollar meherka gabadhani oo lagu magacaabo. gabadhani ayaa waxaa lagu magacaabaa Hodon Yusuf Umar. waa reer Muqdisho. meherkeeda ayay waxay ka qabsatay oo ay ka dhigtay 20 kilogram oo dahaba. dad badan ayaa leh shiikhu waa khaldamay. shiikhu wuu khaldamay, milaa 2 kiilo ka waday 20 kiilo maaha. balse afkiisa ayaan ku haynaa shiikhu oo ku meherinaya meherkaasi 20 kilogram oo dahaba iyo sayga oo aqbalaya oo la aqbalto ee balna la yar daawo. waxaan idin soo gudbin doonaa dhinaca kommentiyada iyo sidii aadka looga falceliyay dhinaca baraha bulshada. Hodon Yusuf Umar oo aan ku nikaaxiyay Yaasiin Axmed Maxamed Daqare meherkeeduna uu yahay 20 kiilo oo dahab ah. 20 kiilo oo dahab uu yahay. meherkaas nikaaxaas ma ugu aqbashay Yaasiin? وأقبل ياسين 20 كيلو ذهب. وأنا وكل النكاحيين بارك الله فيك. Hodon Yusuf Umar oo aan ku nikaaxiyay Yaasiin Axmed Maxamed Daqare meherkeeduna uu yahay 20 kiilo oo dahab ah. 20 kiilo oo dahab uu yahay. meherkaas nikaaxaas ma ugu aqbashay Yaasiin? وأقبل ياسين 20 كيلو ذهب. وأنا وكل النكاحيين بارك الله فيك.